hagaag hadaba backtracer waa ku shubatay backtracer muxuu kuu qabanayaa hadaba qaybtan waxa kugu tusi doonaa featureska ama calaamadaha ugu muhiimsan ee backtracer ka isticmaali lahayd ugu horeen safxadan cad oo geeskan ilaa geeskana waxa loo yaqaanaa workstation meeshan waa meesha aad hoosh ku qabsan lahayd hadii oo ahaa switch hadii oo ahaa router wax alaale wixii network devices ah waxay soo kori doonaan shaashadan isheedu waxay qabatay saqafka kore ee backtracerka waxa loo yaqaanaa menus optionadan waxay ku suurtagelinayaan inay ku fududeeyaan howlahaada tusaale file menuga kale waxa ku jiro inaad abuuran karto safxad cusub safxad cusub waxa ula jeedaa hadii inta ay ka buuxsanto inaad abuuran karto qayb cusub sidoo kale hadii project hore oo kugu abuurnay wax sameyn kartaa waa soo furi kartaa project hore kugu abuurnaa backtracer sidoo kale wuxuu leeyahay option ku suurtagelinaya howlahaada inaad sameysato tusaale hadii aad u baahan tahay in aad calaamadeysato meel qaas ah waxa isticmaali doontaa calaamadahan midkood tusaale hadii aan rabo inaan circle sameeyo circle-kaasna aan rabo color inaan geliyo waxaan dooranayaa circle-ka kadibna waxa leeyahay fill kadibna color-ka rabaan dooranayaa kadib waxa leeyahay okay kadib waxa imaanaya workstation-ka waa ku jiidaya meeshan waxa iga sameysmay marka circles waxay ka caawinayaan kuwan in mustaqbalka markii aad diyaarinayso network designs kala duwan inaad u isticmaasho ujeedooyin kala duwan hagaag hadaba backtracer-ka markii safxadeedu kale sidaan wax u buuxiyo waxa u baahanaa inaad iska tirtiro si aad u tirtirto waxa isticmaali doontaa option-kan delete-ka ah calaamadan hadii aad doorato waxay noqon doontaa x kaasna wuxuu ku suurtagelinayaa meesha ku dhufato inuu ka delete gareeyo sidoo kale backtracer wuxuu ku suurtagelinayaa safxadaada inaad qoraal aad ku sameysan karto qoraal hadii aad rabto inaad sameyso waxaad dooranaysaa note-ka adigoo fiirinayo sawirka meesha saaran kadibna waxaad dhaxmaanaysaa workstation-kaada kadibna waxaad ku qoraysaa wax alaala wixii aad u baahan tahay ujeedka aad rabto inaad ku sameysato marka aad qorto qoraalkaada note-ka marka harayo ilaa aad taabato escape ama aad doorato selection tool-ka backtracer sidoo kale menuska kor wuxuu leeyahay zoom in iyo zoom out hadii aan usoo daadego qaybaha hoose qaybta hadda aan ku shaqeynayo workstation-kan waxa loo yaqaanaa real time macnaheedu waxay tahay waxa joogtaa xaalad rasmiga ah oo hoosh aan qaba lahayd backtracer sidoo kale wuxuu leeyahay meel loo yaqaan simulation-ka wuxuu u suurtagelinaysaa inaad aragto farsamadaad abuurtay qaabku network u dhaxmari lahaa tusaalooyin idinka sii doona simulation-kaas muuqaalada soo socda insha Allah xaggan hoose dhanka bidix waxa arki doontaa network devices oo dhan inay yeelaan marka network devices ku dhufato waxa ku soo bixi doono dhammaan wixii routers la xiriiro waxa ka arkayda sanduuqan qaybta xigta oo network device waxa loo yaqaanaa end device waxa ka helaysaa computer laptop server printer telephone iyo wixii la midka ah qaybta xigta waxa ka helaydaa fiilo أي نوع فيلا اللي استعماله هذه أهلت console cable هذه أهلت fiber optic coaxial cable serial cable ethernet وحي لمدكا قابتان وحكي لسا miscellaneous كا روترو أما كمبيوترو أما سويتشو فيجر ديرادا له تصالة هذه أدوبا هانتا إنا كل حسب ماشو كمبيوتر وايرلس له وكله وحي ما دونتا قابتا miscellaneous أكو قرنتها كدب نوحا هلي دونتا كمبيوتر وايرلس له إلابت وايرلس له هكا كتبا hadii aan u baahanahay in aan soo saaro workstation-keyga system ama router ama switch maxaa sameeynaya kaliya waxa tagaysaa ujeedkaada wuxuu yahay hadda waxa u baahanahay inaan soo saaro router goobtaan si router aan soo saaro waxaan tagayaa network devices kadibna waxa dooranaya router kaaro version-kiisa tusaale waxaan qaadanayaa 2911 midka ku qoran tahay waa ku dhufanaya markaan ku dhufto waxaan dhex imaanaya workstation-ka marka workstation-ka dhex imaado waxa u jeedaa calaamadeeda inay isku bedesho plus kadib waxaan ku dhex dhufanayaa workstation-ka dhexdiisa automatic waxa ii soo galayo router-keyga si kale saalan waa sameyn karaa waa kortagaya anoo click tahayaan soo jiidaya waxaan dhex keenayaa workstation-ka labadaas hab waa sameyn kartaa tusaale waxaan rabnaa inaan isku xirno laba computer si laba computer iskugu xirno waxa soo qaadanaynaa computerska aan rabnaa inaan isku xirno markii aan soo qaadano computerska aan rabnaa inaan isku xirno waxa tageynaa qaybta fiilooyinka oo loo yaqaan connection marka imaano qaacida jirto markii la rabo laba system in la isku xiro hadii laba system isku xiraysa ay yihiin laba system oo isku eg waxa isticmaali doontaa fiilo loo yaqaan cross cable qaybta practicalka oo networking cableska ku baran doona hadii labada system aad rabto inaad isku xirto ay yihiin laba system oo kala duwan waxa isticmaali doontaa cable loo yaqaan straight cable hadaba anaga waxa isticmaalaynaa qaybta cableska mid ay ku qoran tahay crossover cable markii aad doorato ama aad kor tagto fiilada waxa fiirida xaggan hoose waxa ku qoran fiilo kastoo marka aad tagto
waxa ku soo baxeedo fiilada magaceeda. Ujeedadeena waxay tahay markii aan isku xirno labadan computer waxa qaadanaynaa crossover cable. Fiilada markii aad ku dhufato waxay noqon doontaa calaamadaas, waxa ku dhufanaysaa computer-ka rabtid inaad ku xirtid. kadib waxaa ka dooranayda fast ethernet 00 kan kalena sidoo kale fast ethernet 00 hagaag markii labada computer ay sidaan isku xirmaan waxa sameeynayda computerka waxa siinayna IP address waxa ku bar doonaa koorsadeena qaybta networking protocolska computerka waa ku dhufanaya kadib waxa ka dooranaya desktop kadib waxa ka dooranaya IP configurations computerkaadu wuxuu IP ku heli karaa laba option midkood inuu ku helo static ama inuu ku helo DHCP markay tahay computerka asiga cod wuxuu u dirsan doonaa DHCP serverna waxa ku arki doonaa muuqaaladeena soo socda insha Allah anaga la gacanta ku gelinayna waxaan ka dooranayna static waxa gelinayna IP gan geli doono waa class A iyo wixii la midka waxa ku bar doonaa networking protocolska marka ka hadlayno qaybta IPska waxa leenahay 10.0.0.1 qaybtan hoose automatic asiga qaadan doono subnetkeeda computerka kale oo aan rabno inaan fariin la wadaajino asigana waxa gelinayna IP waxaan ku dhufanayna computerka kadib waxa ka dooranayna desktop kadib waxa ka dooranayna IP configuration qaacida jirto markii la rabo in laba computer wax la wadaajiyo qaacidadu waxay tahay ku in la isku xiro laba in labada computer uu ka dhaxeeyo hal IP computerkan hadda waxa soo gelinay 10.0.0.1 laakiin kan .1 ma qaadanayo wuxuu qaadan doonaa .2 waa waajib in labada computer ay same network ku jiraan hadii kale wax fariina lama wadaagi karo hagaag waxa rabaa labadan computer inay frame isku diraan si frame iskugu diraan waxaan dooranayaa qaybtan kore bashqada markaan ku dhufto waxa u jeedaa meesha inay noqoto bashqad waxaan ku dhufanayaa computerkan waxa leeyahay fariinta waxa diraya computerkan wuxuu u dirayaa computerkan kale xagan hoos waxa u jeedaa inay ku soo baxdo successful hagaag hadda waxa rabaa inaan arko fariinta qaabka u dhaxmareeda fiilada si uu arko waxaan tagayaa qaybta simulation marka aado waxa ii soo baxaya panelkan wax kale ma sameeynaye waa gaabinaya ama waa dheeraynaya dheeriskan iyo kaabiskan wax kale ma ahan fariinta intay soconeedo waa dhaxda markay mareedo sidee fariinta u soconaysa ma xawaari ku soconeeda Mr. Teo ku soconeeda uma baahna defaultigiisa ku dhaafi kartaa hagaag hadaba kaliya waxa leeyahay play marka dhaho waxa arki doontaa computerka inay fariin ka soo tagtay oo imaad computerkan markuu fariinta helo wuxuu celi doonaa jawaabtan wuxuu celi doonaa computerkii lahaa markii uu ogaado jawaabta in loo soo celiyay wuxuu saari doonaa tick intaan waxa u qaadan doonaa backtracer overview aad ay u mahadsantahay waxa rajeynayaa muuqaalada soo socda inaad ku raaxaysan doonto insha Allah